وسهلا السلام عليكم مركل سو دوادا دوانيغي idin idhi waxaan ka qayb qaadanaa telefoonadaynu kaga qayb qaadanaynaa telefoonada ayaa fanaaniintii halkan laga wacaya ila la isuma tagi karo waxaan rabaa inaan waco oo bal khadka telefoonka inay inaga qabato aan eego Nasteexo Maxamuud Warsame Nasteexa Indo ayaan rabaa inaan soo qabto hadii ay khadka ku jirto Nasteexa Indo iraadi Nasteexa Indaan garaacay hadii ay Nasteexa Indo qabato oo telefoonka qabato halkan baan leeyahay aan ka leeyahay Nasteexo baan rabaa inaan Nasteexo Maxamuud Warsame Nasteexo yaa man khalday magacii ma la rabo magacayga dhameystiran baa la rabaa sababtoo adiga iminka waanigi magacaaga dhameystiran sheeg waxaas ma ka yeelin ma sha Allah ii waran Nasteexo Maxamuud Warsame maanta dhan waxaan lahaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg line up kan ku jira maanta dhan waxaan isa soo faaninaya waxaan lahaa Nasteexo markii lambarkayga aragto saasi ula boodaysaa dadka line up ka abaan ku jira aan dadka lagu dhageysan baan ku jira da ilaahay ma ka shafin oo adigi la booday Nasteexo si toos ah ugu jirtaa khadka maadaama ay ciid tahay oo guryaha lagu jiro anigana aan barnaamijyadii ciidda daawadayaasha meel kastay joogaan ay sugayeen waxaan isir tolo maxaad samaysaa marka waxaan isir bal dadkii soo qabo horta waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan dumaashigay babygeygii yaraayaan habarta u ahaa xaafadii oo dhan dadkii oo dhan horta waxaan leeyahay ciid wanaagsan walaashay ciid mubaarak waan ku leeyahay ciidul caafiya adiga iyo dhammaan asxaabta iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan iyo ummadda islaamka aba maalin weyn bay noo tahay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay dhammaantood ciid wanaagsan si wanaagsan ku ciida ilaahayna hayna gaarsiiyo bisheeda kuwii nabad iyo caano iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo nabad ku gaar Allah haynaga dhigo ciid wanaagsan ku leeyahay walaashay macaan ciid wanaagsan dadkii ma waxa dadkii shalay ciiday baad ahayd mise dadka maanta ciiday horta sidaadaba anigu team sheekh baan la ciiday horta iglay aan ku sheegay horta awal boqorbaha ciidood waxay iska ahayd ma taqaanaa ciid u egna ma dhihi karo haye oo de qofka qurbaha ku ciida waa iska niyadoon baa laga ciidayaa waa run marka tiyo oo sidii hore ahayd taas ayaa haddana waxyaabo badan isku soo darsameen in corona la yiraahdo waxba kaneecad duudulayso dad bay dishay wuxuu baa ortay markaas ilaahay naga dhigay waa marka nin walba gurigiisa ku jira anigu dadkii shalay ciidayna ma ahayn maantana niyadoon baan ka ciidaynaa ma fahan kuweed niyada kala ciidaysay markaa Nasteexo baan niyada kala ciidayaa oo dad waad ka tahay marka corona cabsi baan ku jirto qurbihii dadka baxbaxay xitaa waxa la waynaad laamiga markaa dadka istaa xagga intuu markuu taagan yahay adna halka taagan ciid wanaagsan la iska dhaho dadka daaqada ka ciidayaan waa hadda baan ku sheegay dadka laamiga guriga hoostiisa soo istaagan baa la ciid wanaagsan Nasteexo cilmi baa ku jiray hadda ka hor Soomaaliya waxaan ku maqli jiray ma taqaanaa naagaha waxa dumarka markay isa soo laayaanba waxay oran jireen waxay markay isdeehan jabaada meesha ugu dambaysan wallahi inaan dhulka ku mitirin wallahi inaan 2 mitirnaya oo halkeed galaysaa 2 mitir wallahi dhulkan ku mitirinaya bay oran jireen calaasha waxay oran jireen dhulkan ku mitirinaya macnaha ma soo bixi kartid halkaad maraysaa ilaa meel walba taaganay macnaha 2 mitir aad taagan tahay dhameen ugama dhaqaaqi kartid wallahi dhulkan ku mitirinaya bay oran jireen moogta iyo 2 mitir aad ku jirtid balka arka soo bax 2 mitir aad ku jirtid shaw xigmad baa ku doogrin hadda waxaan arkay sheekadaas waxa igu soo marro igu dambeysay sheekadaas waxa igu soo dhaday hadda marka la leeyahay maartay meesha leer la calaamadiyo leerada 2 mitir isku jirsada ma aragtay shaw dumarka wallahi aqli baa ku jiray bariga xigmad baa ku jirtay dumarka aqli baa ku jiray hala waxaan daawanayay maxaa la yiraahdaa filin adigu laga matalayo
ها marka naag baa waxay gelaysaa meel website oo dadka la shukaansado shkaansiga calafka laga raadsan هاي هاي marka waxay sameynayaan waxay tagayaan meel adiga baark oo dadku ay fariistaan oo dadku ay ku sheekaystaan هاي marka meeshii oo dhanba ummadda fadhidaa waxay isku jiraan laba mitir fiya markaas xaggaa su-aalo isweydiinayaan waxay leeyahay marka shukaansiga from 2020 dee iyo allaa og xilligay gaari doontee shukaansiga xilliga saasuu noqday afkii iyo sankii iyo gacmihiina waa la xiran yahay hadda ogow marka sheekadaasaan ku qoslay xalayta waxaan taagnaa warriyo qarnigood dusaan kusii socdo ummad badan baa loo yaabaa hadda ogow wallahi ummad badan intii hortay karoonay hortii ka faa'iidaysatay intaas unbaa miyir qabta moogteen waxaan ka baqayaa xitaa kuway saroosaya in laba iridood laga soo kala geliyo oo midna geeskaas laga fiirsho midna geeskaa laga fiirsho nasteexay intii karoonay ka hor faa'iidaysatay adigu aad ka mid tahay baa dadkii ka faa'iidaystay wixii dambe waa ku daayeen ya wixii dambe ku daayeen maya wallahi billahi tala dadkaas masaakiinta waa waxa weeye arrin baa ku habsatay oo uga tacsiinaya ha ilaa sababtoo ah haddii xataa aad shukaansi dambe gel lahayd waa tiro 2 mitir qofkii qaylin kara mise hallow war waxaan ku yidhi miyaad odhan kartaa may hadday hablii isqurxiyaan oo maykaab iyo ismariyaan oo xoogaa waa tan oo la yidhi bahalka isku xidho maykaabkii la qari iyadii isqarisay adduunya rogmatay ka waran isteexay bal ka waran hadda teleefon baynu isaga hadlayna ka waran haddii xitaa la dhihi lahaa teleefonkaa laga kala qaadaa waa halkaas waayarka halkaas kuu soo marayaayo khadkaas oo england baa kugu soo daaray teleefonkaa ma qaban lahayn soo ma oga england waa lagu yaada wallahi nasteexay sanadkan aynu iminka ku jirna 2020 haddii insha allah uu dhamaado caafimaadku maxaad ku xasuusan doontaa maxaad intii kusoo dhaafteed ku xasuusataa iminka walaal horta xasuustu way iska fara badan tahay horta qof walba horta waxaan kuu sheegayaa 2020 hadduu dhamaado waxa lagu xasuusanayo dee dadka badi waxay dhahaan karoonahan ku xasuusanaa karoonuhu qayb weyn buu ka yahay laakiin wallahi labada wax wanaagna waan ku xasuusanayaa karoonahaas waan ku xasuusanayaa wax badan oo lagu xasuusanayaa jira may adigu waxaad ku xasuusanaysaa adigu dabaaldegaagii faraha badnaayo adiga karoona kuma muuqdo may wallahi billahi karoona waa ii muuqdaa wuxuu iigu muuqdaa makuu sheegaa dee imise qofaan garanayaa maanta maxaan ku dhahday dhulka ka hoos maray wallahi beentaa maaha wallahi billahi tallahi beentaa maaha imise qof buu la tegey soomaali badan buu la tegey dad muslimiin la tegey especially dad badan aan garanaya anigu ilaa 7 qof waan garanaya way dhinteen ilaahay ha u naxariisto taasaa ugu xulqotaan kusoo xasuusanayo nasteexay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay in daawadayaal badan aan maadaama inaan is arkayno dee anoo lalayaan gurigaaga kugu iman lahaaye haddiiba dee saas noqoto corona oo sheekada telefon kusoo ururtay horta bal daawadayaasha ku daawanaya ee halkan kaaga xidhan ee halkan kaa daawanaya dee meel walba kala jooga ay naciid tahay horta codkaagaan rabaa inaad maqashiisid codkii lagugu bartay codkan ma ogtahay kanaan hadda kugula hadlaya codkaagii maahee adiga maxay irta cod bay kugu yaqaanaan dadka codadka iyo way kala leeyihin mawtiqaa dadna waxaa lagu yaqaanaa inay maxay tahay codkooga si kale dadka u maqashiyaan dadna inay de sidayda iska soo fadhiisan intay kabarad hor fadhiistaan maantana daldalmaan yidhaa waraya naga aamusiye qofkan waxaan anigu aan mataqaanaa shicibka horta halkaas ku jira anigu ma arke waxaan leeyahay horta dhammaantood ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan dadkii aan ka beermay dadkii aan jeclaa waxaan leeyahay si wanaagsan ku ciida sanadkiisa allaha mataqaanaa si caafimaad ah idinku gaarsiiyo annagii idinkaba xanuunkan ummadii daashaday ee dadkii mataqaanaa kala irdeeyeyna waxaan leeyahay ilaahay ha inaga dulqaado innaga iyo muslim iyo gaalba allah ha inaga kor qaado haddaan xagga codkayga igu yaqaanaan aan usoo mataqaanaa soo gaarsiina waxaan leeyahay alla maanta ayaantaaga iyo ciidda wanaagsan allihiina siiyey isaga ha ku aba way ahaatay maanta si wanaagsan u ciidaan leeyahay wow maasha allah hal jacaylaad noogu daraysaa markaa haddiiba aan ku qabnay lagu sii dayn maaye waka
maxaa jacayladii baan bilaaweybe ma markaad gacanta ku dhigto baad wixii waxaan leeyahay dareehen qalbigano Allah wadnaha hugunkii isamaqa ilmada iga hibiqtiqido ka hortay ishaydane afkuna waa kula hadaleeye qofnaan ugu celi jawaab awraaraha subano kalsoonida laga helaa iyada oga yeeldhagaha naftana waan ku huro jacaylkaagay hayeye adoon cidna igu halayen hogaagiga dhigo hogaanka oo hay cishtiga iglane hogaanka oo hay adduunyada haddaba nasteexay heestii aan islahaa aad ka dalbatid ee heesahaaga heestii aan ugu jeclaa heedhe ee aan islahaa maxaa la yidhahdaa ii sheeg nasteexo aad tidhaahay nasteexo heestaas anaa iska leh baad horta iisoo hormarisay kawdhe ilaahu waa saa igaga sarreeyay waa heesta aan maxaa la yidhahdaa heesahaaga ugu jeclahay bismillaahi waxaa laga yaabaa dad badan oo ciidda maxaa la yidhahdaa halkan farxadda ciidda kula qaybsan doono oo halkan sugayaan heestaas inay odhan lahay namaad noo weydiisa adigu naga aamustido heesta kaloo aan heesahaaga ka jeclayna waxaa la yidhaha xishood dumar waan gartay midkaan u hibeeye naftayda dartiisa huraye hadalka kuma odhan karo xishooda dumar bay la haray waa waxaan ku yidhi weli kasada heestaas miyaa kugu dhacday waqtigaan ku weydiiya su-aal miyaa kugu dhacday waxay ku dhacday weliga xishood makula tegin bismillaahi makula tegay baan ku yidhi iminka waxaa telefonkii kaa horreeyey barnaamijkii kaa horreeyey waxaan ku waraystay cabdiraxmaan xadanteeye markaasuu heesay markaasaan ku yidhi cabdiraxmaanow dadka waad la hadashay baan ku yidhi dadkan iyagaa dhigalo aan waxba maqlayn dadkan iyagaa dhigalo oo wax alaale waxay dhegaysanayaan ma jirto waan ku sababtoo wixiiba markaan iminkana heesahaaga dib u soo eego waxaa dhada nasteexo de dadkan way la hadashaye maxaa la yidhahdaa ii sheeg dadkani waxbaba maqlimi or dadkani miyaanay xataa heesaa u dhegeysan heestii ugu dambayseeda yandhoweyd soo qaaday waxaa jirta hees aad hadda maandhoweyd soo qaaday oo dee heesaha maxaa la yidhahdaa ii sheeg heesaha ugu dambaysaa u malaynaya inay iga dambeeye may heestaasaa ugu dambaysaa u malaynaya ilaa heesahaaga dee waan la soconaayo waanu sugnaayay nasteexo maxay mooyey sanadkan way naga seexatay ayaantan waxba may soo qaadin ilaa dad baad moogtay dad baa aad u maqantay dad dhan ba dad badan baa hortaad u tirsantay moogtay oo ku tirsadaa oo ku soo dirsaday naf baan qasbayaa wax jecel heestaas way jirtaa waa heesi iyadu meel stage baan ka qaaday bay ahayd iyadoo mataqaanaa dhegaysi ah waxaa soo geliyey wiilka habarta ahay kabaraay hal marna stage baan ka qaaday sugana bay ahayd waa run abababababa heestaasi horta waa heesahaaga ugu dambeey malaha waa heestii ugu dambaysa maaha nasteexo inkastoo dee heesihii aanu kaa sugeyn heeso badan wax soo baxa iyada ugu dambaysa ha iyada mid aroosaa ka horreysay iyada ugu dambaysa wax soo baxa sax heeski waxay jirta iyadana dee heesahaagii lama soo koobi karne hees waxaan ku yidhi saqiir iyo kabiir xataa qofka meel iska taag warkaale horta ma tiir baa tahay maxaa meesha ku taagay heestaa inkastoo ay mar hore ahayd oo heesaaga ahayd ma xasuusata bal aad in yar naga maqashiiside heestaas de waa heestii jirtay oo weliba dee gabar qaadaysaan baarko ash kale ku qaaday weliba gabadha qaadaysaa maxaa la yidhaha soomaali maaha ma garanaysa waa garre ilaa hadda waan garan waay marka waa luuqada garamiya waa luuqadu waa garre dabeetana laxankiibay siday tahay u qaaday adduunyadii oo dhan waxaan ku yidhi iyada unbaa bedela afkoodii bay heestii lagu bedelay waxaan ku horta heesta inkasta waxay ku heesaysay aanan anigu waxba ka fahmin de wax iga caawiyana aanan helin oo fahansiiya maya waa garre gabadha af soomaaliba maaha waa oromo iyo garre isdhalay marka labada luuqadeetay tahay ma garanayo
laba weliba nasteexay aan kuu sheegay laba luuqadood bay ku qaaday midna waa garre oo waa luuqada dad reer Kenya waa garre midna oromay ku qaaday ma iyada labadaba marka qaaday labadaba laftigeeda qaadaysa haa taas hadaba iga caqli badan markaas waxay tiri heesta maxaa la yiraahdaa ii sheeg oromada iyo moogsoon tahay iyo af Soomaaligu sometimes meel bay iskaga dhow yihiin ma garanaysaa waan gartay heesta waxaan ku yiri maalin baan arkay anoo isla aabad wareysatid baan ka degdegay oo aad weydiisaan ku dhaanay ayaa ku turjumay waxay tiri heestaasaan ku bartay af Soomaaliga bay tiri gabadha horta waxbaad bartay ma horta ma sha Allah horta gabadha ilaahay aqli si way aniga iga aqli badan oo marba hadda laba luuqad ku qaatay waa tan aniga iga daahsanayd koodhe hadaan ogaan lahayn dhowr luuqadood galaysan ama ku soo saar lahaa dhageyso gabadhaasi waxay tidhaahday gabadhaas heesta markaan dhageystay muusiga iyo laxanka iyo waxaas iyo codka inta way qancin kadib af Soomaaliga ay ku heesaysan soo bartay waxay tiri kadib school baan u galay bay tiri nasteexoy kadib waxay tiri heestii waan soo bartay waana fanaanad oo luuqado waxay ku heestaa gabadha oromo iyo waxa iska dhalay oromo iyo garre garu waa Soomaali ma inahay ha garu waa Soomaali laakiin luuqada ay ku heesaysay leeyihiin luuqad kale leeyihiin waa taas waan ogahay inay luuqad kale leeyihiin waa ka marka laakiin gabadha oromo iyo waxa iska dhalay garre kadibna labada luuqadoodba way taqaanaa kadib waxay tiri af Soomaali waxaan u bartay heesta inaan barto marka walaal maadii weydiisay talow maalinta hadaad aragtay heesta maxay marka ku heesaysaa ma jacayl ilaa uu karbaash bi xaggee ka ahayde iyada ma jacayl bay ka dhigtay erayadaas ma jacayl kama dhigin erayada laftirkooda baa la rogay waa erayadii oo la rogay waa macnaha waa erayadii oo laga dhigay erayadii oo laga dhigay oromo iyo garre laftirkoodii mid bay sida albaabka uga saartay tiirkii magaalada tabitay dadka soco meesha ka soco Allah ilaahi ma gabadhaas iga cilmi badan igana aqli badan oromo iyo garre caydsi mid oromo iyo mid garanaysan waxaan leeyahay waa ku salaamaya maxaa la yiraahdaa adaana walaalay horta waxaan ku weydiiyay adiga laftirkaaga ummad walba ma soo dhex martay war ilaa sawkiiniyo kuma noolay nasteexay gabadha waan kula soo hadal siinayaa waa inaan hadda aan ku raadiyo ku soo xidhay lambarkeeda waan hayaa midda kale waxaan ku sheegayaa qaar garre ah mid garre ah iyo mid oromo ba albaabka laga saaray nasteexay damay wala markaas dagaal meeshaas looma kala harin see loogu haray sidii aad maxay magaalada u dirtay iyadoo u dirtay adigu dadka anti kasad adigu waxa weyd marka ka taxsantay ilaa waan yaabanahay waliba anigu nasteexay hadii aan maxaa la yiraahdaa live ku arki lahaa warays live ka qaadi lahaa de hadda waa telephone moogsoon tahay oo waana iska ciido waana kala fognaay moogtahay intaynu saragnayna qaraxiyo qasal baan ku dhamaysan intaynu saragnayna waati laakiin waxaan ku weydiin lahaa waxaan ku yiri waa lagu kala guuri kii lagu kala guuri lahaa waa insha Allah aakhiro iyo if lagu kala bixi lahaa baynu iska wareysan lahayn aakhiro if Allah inay dibka waan joogna aakhiro Allah ma taqaana khayrkeed Allah ina siiye waxaan ku yeebiyay loo kala bixi lahaa afar waxa weeye afar mahmahood oo reer xamaran ka rabo oo aan kuwa yacni reer xamarka cadcadkaaban ka rabaa afar mahmahood oo degdega oo reer xamarka asliga mahmaahiyooda waana degdeg si wanaagsan isma naqaale lagu xanta lagu xasuustaa ka horeysa haye luq maro la islaamigaasi maada wow haye laba mega haysa ha abko dawlad dilo dhamnool ma sudaha haye haye ilaahu allah musta'an midba luqa ku jirtay isma jiide maya sakin baan haysataa sakin ma sakin baan haysataa ha maxaa quraan anjala si u kala qoraysa loo kala qaataa la ilaaha illa allah iglada had saafada iga haysta allah xigmada alla gabadh rabbi xigmad dushaada waa dhigay rabbi baan ku yiri waa kugu manaystay tii xigmad ahayd waxaad ku qabatid dushaada waa dhigay la ilaaha illa allah saasa lahjada loo kala bartaayo maxaanu Soomaali u taagana walaal waliba waxa kaaga sii darna sadeexay lahjada waxaad hadda aad lahjadaadi imika ku hadashay waa tii asliga ahayd bushaara waxay tiri reer xamarka waxay tiri qof rooraya hortiisa lama rooro haddaad roorti waa kugu kordhacaa ku tee waxaan ku sheegayaa waa ka
والله بالله تالله والله كنتي نستحي ان حبيبتي ان aad baan ugu faraxsanahay inaan khadka telefoonka ka soo waco adigoo oo jooga wadankaagii magaaladaadii Oslo adoo jooga de waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan daawadayaasha iyo dadka Soomaaliyeedna halkan ay kala soconayaan dumaashigay iyo baybigayga yarna waxa aad igu salaami doontaa insha Allah ciid wanaagsan baan leeyahay insha Allah iyo dhamaan adiga waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ummadda islaamka abeel walba joogan especially Soomaalida diigayga iyo dhacaankayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad baan dii salaamaya aad waa dii jeclahay caafimaadka ciida adiga iyo dhamaan inta ka agdhowna waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan iglanay waad ku maadsantahay naftarkaagu inay soo xasuusatay lagu xanta ma lagu xasuusto xalle kugu soo xasuustay waa ku xantay idhagayso waa ku xantay kadib waa ku soo xasuustay كورنت فانتي باتي عمل له حسوس ما حد يقول سعلي lagu xanta lagu xasuustaa hore هسه عمل اباي واكو حنت كنت واكو صح حسوستي واتي walaashay aad baa u maasan tahay waxay ahayd nasteexo maxamuud warsame oo joogta magaalada Oslo oo khadka telefoonka nagala qayb qaadanaysay insha Allah fanaaniin kalena dawaan wici doonaayo halkan baan kala dabaaldegi doonaa insha Allah bismillaahir kariim saasan iskula soconaynaa qaybaha dambe ee hamis gareynina